dalkeena Soomaaliya saan hor u sheegnay groupka wuxuu galay group G waxayna group yihiin dalkeena Soomaaliya, Algeria, Guinea, Uganda, Mozambique, Botswana iyo Soomaaliya. Waa group G. sida hadda oo isku aadku u saaran yahay kulankan koowaad waxaa macquul inaan la ciyaarno dalka Algeria. badanaa isku aadyada marka la sameynaayo saas waa koon waxaa laga bilaabay hoosaa laga soo bilaabay sida aan wada arkaynay ama hadda ugu jiidaan shaashadda. koo waxaa laga soo bilaabay hoos, macnaha dhalooyinka waxaa lagu riday wadamadaasi isku leeyihiin oo rankiga FIFA ay ugu jiraan sida ay kala sareeyaan rankiga FIFA ay ugu jiraan kala horeynta. macnaha waa horumar wanaagsan, waa nasiib wanaagsan biidhnillaahi raxmaan. waa rajaynaynaa insha allah inaan ka qayb galno World Cup-ka. maxaa yeelay 5 ciyaar ilaa 5 ciyaar 10 ciyaarood ciyaar ma aha. diyaar garow fiican oo wanaagsan waan samayn doonaa insha allah. maxaa yeelay ninka hadda noo joogo gudoomiyaheena gudoomiye Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino waa nin u diyaarsan, niyadiisana ay raacsan tahay inuu wax qabto, ay ka go'an tahay inuu wax qabto, kana run sheegaayo wax qabadkiisa. waa nin fokiskiisa iyo aragtidiisa aad iyo aad u dheer tahay. waa nin fokiskiisa iyo aragtidiisa fishinkiisa nin aad u dheer tahay. waa waxyaalahana oo weligiis uu hamin jiray uuna jeclaa inay dhici doonto maalin in Soomaaliya ay ka soo muuqato ciyaaraha adduunka. insha allah waa dhici doontaa hadduu Ilaahay idmo. gudoomiye Cali Cabdi Maxamed waana ka go'an tahay, waana la arki doonaa insha allah sida haddaba loo arkay. waxaan rajayn doonaa sanadkan iyo sanadaha kaleba insha allah inuu Ilaahay kheyr noo wada gaarsiiyo. Soomaaliya sanadkeeda ama Soomaaliya sanadaheeda inuu Ilaahay ka dhigaan rajaynaynaa biidhnillaahi raxmaan. aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin dhegeystayaasha qaaliga ah oo pageka Macalin Saalax, youtube-ka, facebooka, tiktok-ka ku xiran, instagram-ka kulli. sida wanaagsan ee commentiyadiina aad nila soo wadaagtaan waa adiga mahad celinaa. markaasna waxaan diyaar u nahay inaan soo gelino dadkii sportiska ahaa. waxaa kaloo xusud mudan, waxaa arkayna in lagu casumay legends aad iyo aad u badan oo ahaa kuwii qaaradda Afrika sumcaddii magac ku soo yeeshay. waa jiraan dad madax ka soo qayb galeen, madaxda xiriirada kulli, laakiin qorituurka waxaa sameynayay sidaa arkayseen ciyaartooydii soo maray qaaradda Afrika ee magac ku lahaa. qaarkood mar hore ka fadhiisteen, qaarkood hadda ka fadhiisteen. insha allah la arki doonee dalkeena Soomaaliya oo ciyaaraha adduunka ciyaari doonta insha allah biidhnillaahi raxmaan. aad iyo aad ayaa ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad nala soo xiriirtaan.